48 saac la soo dhaafay waxaa si aad u xoogeysanaya hadalhaynta macluumaadka ku saabsan xaaladda Benjamin Netanyahu uu ku sugan yahay. Waa uu dhintay ama dhaawac ayaa soo gaaray ama qalin ayuu galay. Macluumaadadaas ayaa si weyn loo falanqeynaya. Waatii aan barnaamijkii hore idinkula wadaagay 3 arrin oo dawladda Iiraan ay ku soo koobtay xaaladda Netanyahu. Inuu dhintay, inuu ka cararay Israel ama inuu dhulka hoostiisa ku dhuumanayo. laakiin wariye u dhashay dalka Masar oo Osama Chawish lagu magacaabo ayaa faahfaahin kale ama macluumaad kale banaanka keenay. Wuxuu taagan yahay waxa suuragal ah in macluumaadkaanba markii horeba banaanka ay keentay Israel, gaar ahaan cutubka sirdoon ee loo yaqaano cutubka 8200. Ujeedadu maxay tahay marka? Waa in la kiciyo buu yiri rajada dadka ama cadowga, markaas kadibna Netanyahu uu soo muuqdaa isaga oo caafimaad qabo. يعني marka hore macluumaadkan ayaa banaanka la keenaya, focuska oo dhan waxa la saaraya xaaladiisa, kadibna isagoo caafimaad qaba ayaa la soo bandhigaya. Maxay ujeedadu ka leeyihiin marka? Waxay ka leeyihiin ujeedada ah buu yiri in dadku ay yiraahdaan yani ninka fursad lagu dili karayo ma jirtaba. Taasina waxay dadku ku abuuraysaa niyajab iyo quus. يعني madaxda Israel lama gaari karayo iyo macluumaad noocaasi ayaa la doonayaa ugu dambeyn in banaanka la keeno. dhinaca kalena haddii aan raaciyo hadiiba uu nool yahay ra'iisul wasaare Netanyahu sababta macluumaadkan ay u baahin karayaan cutubkan 8200 haddii aan wariye Chawish aan macluumaadkiisa raacno, waxay ka dhigan tahay in Netanyahu ugu yaraan iyo xukuumaddiisa ay ka dhuumanayaan culayska qasaaraha Iiraan aan la filaysanaynin ee soo gaaraya dadka shacabka. marka dadka shacabka culayskan hadda haysta culayska weyn ayaaba loo daaraya oo ra'iisul wasaarihi ayaa la weysan yahay, yani buuq sidaas ayaa loo daaraya si ay arrintaasi aad ugu mashquulaan. gintaalada dawladda Iiraan ee ku soo dhacayana aanay waxba u arkin oo fikradaas kale ayaa lagu mashquulinaya. waa sida ay la tahay. macluumaadka wariye Osama Chawish haddii aan u soo laabano marka ay reer Masar, wuxuu taagan yahay Netanyahu yani wax nooga daran ayaa jira. dhibaatadu ma ahan buu yiri Netanyahu laftiisa, ama dhibaatadu waa maamulka ama dawladda la yiraahdo buu yiri Israel. sababtu maxay tahay buu yiri? wuxuu yiri dawladdan waxay qabsatay dhul aysan iyagu lahayn. waxay halis ku tahay buu yiri amniga qaranka ee dalalka Carabta. waxay leeyihiin buu yiri himilooyin ballaaran oo ah Israa'iisha weyn, sidii dhawaan uu ka dhawaajiyay safiirka Mareykanka u fadhiya Israel Mike Huckabee ninka lagu magacaabo, markii uu sheegay Israa'iisha weyn in qorshaha laga leeyahay ay tahay in dhulal badan la qabsado sida Masar, Sacuudiga, Urdun, Suuriya iyo qaybo kamid ah dalka Lubnaan. sidaa daraadeed buu yiri halista mustaqbalkeena buu yiri iyo tan dalkeena, xuduudaheena iyo dadkeena iyo amniga qarankeena ma ahan ra'iisul wasaare Netanyahu ee waa maamulka Israel. sababta buu yiri waxa dhintay David Ben Gurion, waxa dhintay buu yiri Menachem Begin, waxa dhintay Yitzhak Shamir, waxa dhintay Shimon Peres, waxa sidoo kale dhintay buu yiri Ariel Sharon. laakiin xukuumaddii ama dawladdii wali way jirtaa buu yiri. Netanyahu uu dhiman karaa ama uu noolaan karaya, laakiin qatartu way jiri doontaa buu yiri ilaa maalinta ay shucuubta Carabta ay fahmaan awoodooda dhabta ah, hogaamiyaashuna ay gartaan buu yiri cadowgooda dhabta ah. ninka marka waxaad muddaa fariin kale inuu dirayo waa wariyaha reer Masar. markaas waxa suuragal noqon doonta buu yiri in la yiraahdo yani waa marka ay shucuubta wax gartaane ra'iisul wasaare Netanyahu ma nool yahay, miyaa la dilay, Israel weli qatar miyay nagu tahay mise. markaas ayaa laga wada hadli karaa ayuu yiri. yani macluumaadkaas ayaaba inooga daran sheekada hadda la hadalhayo. adigu maxay kula tahay? aragtidaada nala wadaag, like share muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay.